dadweynaha ku nool dooxa laasdigay waqooyiga magaalada Boorama oo sanado badan la soo tacaalay dhibaato rabbaani oo halkaasi ka taagan taasoo ahayd in xilli roobaadka ay dadkaasi dhibaatooyin xoogan kala kulmaan dadka xoogan ee dooxaasi ka soo rogmada maadaama deegaankan uu kulaalayo magaalada Boorama isla marhaantaasna xilli roobaadka biyaha dooxani soo maray ay kala xidhaan iyaga iyo magaalada Boorama ayaa dadweynaha deegaankaasi waxay bilaabeen si iska wax u qabso ay ku dhistaan isla marhaantaasna halkaasi ay kaga hirgeliyaan biriish ay xal ugu raadinayaan dhibaatada xilli roobaadka ka timaada halkaasi haddaba dadweynaha oo si iskooda iskugu tashaday isla marhaantaasna isku xilqaamay sidii dhibaatada soo jireenka ah ee muddada sanadaha dariska la hayeen ay soo afjir lahaayeen ayaa waxay dadweynaha muxsiniinta deeq bixiyaasha hay'adaha caalamiga ah iyo dawladaba ku codsadeen in si iyo miisaan la isku garab taago maadaama dadweynahan iyo hadda dhexda u xidheen ay soo afjiraan dhibaatadan rabbaaniga ah ee muddada sanadaha halkaasi ka taagneyd dadweynahan oo warbaahinta la hadlaya waxay faahfaahin dheeraad ka bixiyeen dhibaatooyinka xooggan ee uu ku hayo dooxan iyo sida gebi ahaanba ay go'doonka u galaan xilli roobaadka Ibrahim Ciga Meedhan oo injineerka gacanta ku haya dhismaha biriishkan ee ay heliyaan qaar ka mid odayaasha deegaanka ayaa halkaasi ka hadlay halkan aan joognaa waxa weeyaan waa dooxa laasdig oo ay biyo badan isugu yimaadaan biyo ka soo rogmada Saaw biyo ka soo rogmada Hayaabe biyo ka soo rogmada Boorama dhammaantood ay isugu yimaadaan meesha aan joogno markaa ayay ku kulmaan halkaas ay markaa dhixda ka galaan waxa markaa dadka degan qarkani degan iyo kuwa qarkani degaba habeenkii isku ma talaabana way dhaxaan qolaba waxay hooytaa halkay joogtaba ay hooytaa sida awgeed meeshaana biyaha inta leeg baa mara waxa loo sameeyaa biriijkaas loo sameeyaa kaas oo markaa isku xidhaya halka iyo ilaa turqada isku xidhaya waxa loo baahan yahay markaa hadaba mucaawina ahaan cidii Telesom iyo cidii kale shirkadeen caawin kartaa inay caawiso oo markaa wax noo qabato biriijka la noogu dadaalo oo hadii roob soo doo waxa weeyaan qodobo dhankeeduna ay ku eegtahay oo dooxa wax dax badan baa dadku qaadaan dad iyo xoolaba oo qaada in ka codsanaa hay'adaha samafalka iyo hay'adaha shirkadaha in la nacaawiyo oo la noo caawiyo biriijka la noo dhiso annaguna waan dadaalaynaa xilkuna annaguna saaran yahay dadka hawsha waa annagu xooga wixii qaban karta bilaas baan qabanaynaa wixii laakiin dhaafsan waa in la noo qabtaa deegaankan dhinaca yaala ilaa kan magaalada halkan iskuba talaabaan maalinta roobdo markaas la noogu sameeyo biriishka iyaan doonaynaa in la nagu gargaaro oo la nagu caawiyo annaguna waan dadaalaynaa waa annaga xoogayga gelinaynaa anigoo injineera waxaan ahaa dadkii deegaankan ku soo barbaaray waxaan arkay dhibaatada meesha ka jirta anigoo xasuusan hooyaday oo markay halkaa biyo u soo doonato dabeeto halkaa u hooyan jirto oo odhan jirtay dixdii ayaa maaragtay awdaad socdo oon ka soo tallaabi kari waayay waxaa kaloo jirta ingiriisku halkan iminka laga shaqaynayaad arkaysiin dusheeda ayuu xidhay dabeedna biyihii ayaa gooyey sidii baa dabeeto anuu meelaha 20 sanood 30 sanood baan deegaanka ka maqnaa marka anigoo injineerkii oo farsamadii garanaya aan arkay dhibaatada meesha ayaan dadka iskugu yeedhay inay iskaa wax u qabso hay meesha ku bilaabaan si ay dhibaatada hay meesha u xalilaan marka walaalayaal waxa weey horta hawsha waxa mas'uuliyadeeda oo dhan qaatay dadka deegaanka marka cid alla cidii taageera oo fidin ama dawladda haato ama dad shakhsiyaad haato walaalayaal sidaasan soo dhaweynayna waad mahadsan